السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دوادا walaalaha meel walba aad joogtaan aad baan idin salaamanaa. waa mar kale iyo muuqaal cusub ku soo dhawaada taxanaha Fountain of Life oo ah barnaamij aad u xiiso badan oo kaga wada sheekaysan doono mid ka mid ah product-yada caalamiga ah oo soo saaro shirkadda Obus Global waliba qaybta health-ga waxa jira product-yo kale oo ka saameyn badan product-gan aynu hadda idin wadno waxaynu si toos ah aynu uga wada sheekaysan doonaa intuu socdo programkani sheekooyin aad u xiiso badan aynu ku soo deyn doono programkan waxa ila joogtaa Juuriya Cabdiraxmaan oo kamid ah team Obus Global waa ganacsato ka shaqeysata in ka badan 204 wadan sidoo kale waxay guulo badan ka xaqiijisay internetka dhexdiisa waxa inta u dheer waa tababarayaasha ugu saameynta leh ee company-ga Obus Global ku soo dhow Juuriya taxanaha Fountain of Life waan kaga mahadcelinaa waqtiga qaaliga noo soo hurtay si aad uga faa'iideyso faa'iidooyinka dhowrka aad ka heshay product-yada cajiibka ah oo soo saaro company-ga Obus Global. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماريا وكاga mahadcelinaya barnaamijkan aad igu soo casuuntay taxanaha Fountain of Life. magacaygu waa Juuriya Cabdiraxmaan Xuseen sideedii sheegtay Maariya Xuseen. waxaan bachelorkaygu waa social work waxaan sidoo kale masterteeda ku diyaariyay clinical oo wada hadda psychology waxaan ahay environmental activist sidoo kale waxaan ahay business women ama gabadh ganacsata waxaan ka ganacsadaa businesskan online-ka oo ka howlgalay ilaa in ka badan 200 oo wadan kaasoo in 2 sano iyo dheeraad aan inka ku shaqaynayay alxamdulillah rabbil caalamiin ayna tahay yani wax laga gaari karo horumar iyo guul saan u arkayna aan maxaa la yiraahdaa hore ugu sii socday inaadan ku soo koobayaa Maariya Xuseen. mahadsanid Juuriya waxaan rajaynayaa dad badan ay ka bogteen Juuriya waa tuma wax badan ay ka ogaadeen waxa jirta caalamku hadda wuu isbedelayaa waqtigan aynu ku jirno technology-ga online-ka ayaa hogaaminaya dad badanna nolosheeda saameyn weyn ayuu kaga sameeyeen online-ka dhexdiisa muddada ay ku jireen waxa jirta saan hore u soo sheegay inaad ka ganacsato in ka badan 204 wadan maadaama dunidu ay ku socoto xawaare adoo gurigaaga joogana wax baran karto adoo gurigaaga joogana dhaqaale sameyn karto wax walbana ay fudud yihiin sidee bay kugu suurta gashay inaad ka ganacsato in ka badan 204 wadan adoo goobtaada shaqo jooga adoo ganacsanaya adduunka meel walba joogo sidoo kale adoo wax baranaya bal dadka taa u faahfaahay. aad baad u mahadsantay mar labaad Maariya wallahi markaan la joogo maanta yani waqtigan iyo casrigan aynu joogno sidaad sheegtay wax badan ayaa maanta internetka dhexdiisa inoo suurtageliya ama teknolojiyadu inoo fududeysay oo uu qofku ka faa'iideysan karaa marka waxyaabaha waxaan ku soo koobi doonaa ilaa 3 wax oo aad waaweyn midda koobaad waxa weeyaan teknolojiyada iyo maanta heerkan ka taaganahay oo maanta inaga dal ahaan marka laynoo eego aad ba moodid inaynu wadamada kale la jaan qaadayno oo de wadamo badan Afrika baa aynu ka fiicannahay marka taas baa iyadu waxay tahay waxa koowaad ee maanta platformkan ama fursadan ka dhex arkay aanan ka faa'iideystay takaleeto waxa weeyaan company loo yaqaan Obus Global oo ah company caalamiya kana howlgala in ka badan 200 oo wadan markuu qofku business bilaabayo walibana uu ganacsi yar oo small business waxa loo yaqaan oo bilaabayo way iska adag tahay caqabado badan baa jira waxa adag inuu qofku magaalada uu joogo uu hareeraheeda gaarsiiyo inuu gobolka uu joogo ama magaalada maxaa leedahay deegaanka uu joogo ganacsigiisa si fudud ku wada gaaro laakiin maanta isagu wuxuu ku suurto gelinayaa adigoo small business inaad maanta intaas marka la dhado maanta Juuriya wax ka ganacsataa 200 oo wadan in ka badan qof waliba wuxuu ka fikirayaa waa ganacsi weyn laakiin isagoo ganacsi yara oo wax $1 ka yaraad qofkii invest garanaya ama ku bilaabayo ayaga intaas oo wadan aad gaari kartaa marka fursadda markaan arkay aniga huge opportunity ama fursad aad u weyn bay ila noqotay waana qaatay waxa aan furtay website oo Juuriya online business la yiraahdo waana yani go'aankii aan taasina anigu waan qaatay markaan arkay fursadda iyo noocay maanta u taalo fursadda ganacsi aan saa ku qaatay marka wuxuu ku diyaarinayaa platform website ah oo yani like sida shop ama dukaan oo kale
u design garaysan oo wax kasta yaaleen qiimahoodii ku qoran yihiin then aad adigu marketingkii u samaysanayso oo intaasoo wadan magacaagii iyo maxaa la yidhaahdaa iyo brandkaaga uu gaadhayo oo aad ku iibin karayso marka waa taas taan oran karo way ii fududaysay waanan ku bilaabay maasha allah waa fursad waqtigeedii aad qaadatay runtiina dad badan uga faa'iidaysay intaad ku jirtay online-ka dhexdiisa waqtigan runtii waxyaabo badan ayay dadku kaga faa'iidaystaan internetka dhexdiisa saan hore usoo sheegay waxyaabo badan adigu aad kaga faa'iidaysatay jewelry ahaan dhaqaalena waad kaga samaysay intaad online-ka ku jirtay dad badan oo Soomaaliyeedna waad uga faa'iidaysay fursadan wax yar haddaan ku daro shirkadda Oblas Global si guud waa shirkad caalami ah kuu sahlaysa kuuna fududaynaysa inaad si fudud dhaqaale u samayso meel walba adduunka aad ka joogto uma xidhna goob ama beliis shirkadaasi meel walba ayay kula socon kartaa waa dukaan meel walba jeebadaada kugu jira sida mobilkaaga iyo laptopkaagaba aad ka dhex samaysan karto ganacsigaaga dadkana aad ugu adeegi karto ganacsigaagiina aad ku kala wadan karto dadkana aad uga faa'iideyn karto runtii waa fursad weyn online-ku inoo soo kordhiyay waqtigan dadkuna inay ka faa'iidaystaan ayaan rajeynayaa jewelry waxaa jirta productyo caalami ah uu soo saaro shirkadda Oblas Global si guud productyadaasi maxay kala yihiin waxyaabaha uu kambanigu soo saaro saddex waxa waaweyn bay u qaybsan yihiin oo ay ka mid yihiin waxa loo yaqaano isqurxinta ama fashionka waxyaabaha loo yaqaano iyo waxyaabaha personal care oo fashionka marka leeyahay waxa weeyaan wax kasta qofkii isku qurxi kara like sida saacadihii qoori waxaana jewelry-ga suumankii ragga yani kabayowgii oo ay noocle waana wax alaab qaali oo dadka maad aragtay celebrity loogu talagalay marka qaybtaas waa qaybta ugu weyn kambanigu uu bilowna ahaantiisina uu ku bilaabay businesska marka yani just adigoo maanta halka jooga laga yaabo inaad yani dukaankaaga dhexdiisa kaga leebisato saacad qaaliya waxyaabaha iminka inaga markaa Soomaali ahaan la eego inagu badan waxa ka mid ah $3 ama $2 intaad saacad siisato ama $10 ba siiso yani inay waqti yar wixii isbedelo ama uu ka cadaado lacag yar iyo tayo yar marka taas lidigeeda waxa ku ah inuu yani soo saaro wax quality leh oo waqti iyo kula qaadanaya time wax laga yaabo 10 sano ka bacdi shay aan isbedelayn takala waxa weeyaan waxyaabaha dhiiliga isticmaalno personal care ka haday tahay shaambooyadii haday tahay kiriimadii qof kastaba markuu subaxii soo kaco waxa uu isticmaalo waxa kamida inuu qof kasta bacadaydo inuu kiriim marsado inuu yani tintiisi uu soo meedho ama jirkiisa uu soo meedho shaamboo ku soo meedho marka waxyaabaha aad dhiiliga u isticmaasho qayb ah oo qofkii naftiisa ku ilaalinayo ku keer garanayo oo waliba quality leh marka waxyaabaha anigu aad uga sii helo waxa kamid ah inaad maanta dukaankaaga dhexdiisii wixii aad suuqa ka doonan lahayd maanta banaanka soo iibsan lahayd aad ka helayso ay kugu diyaarsan yihiin waliba iyagoo quality leh oo naftaada caafimaad mooyee aan cudur ku keenin oo yani maadaama iska yar yihiin inaka waxyaabaha quality-ga leenoo yimaadaa ay aad quality-gooda u sareeyo qaybta kale waxa weeyaan qaybtaan maanta ka wada sheekaysan doono oo fountain of life baa loo yaqaanaa waa yani health supplementary waana qaybta yani marka la leeyahay health supplementary ama xagga caafimaadka ahaan oo kale uu qofkii wax u tarayo marka si guud ahaan haddaan sheego waa wax kambanigan waxaad ka helaysaa waxaad isku qurxin lahayd ama ku labisan lahayd wixii aad isku dhalaalin lahayd jirkaaga ku daryeeli lahayd iyo wixii aad caafimaadkaaga wax u tari lahaa ama aad kor ugu qaadi lahayd xagga caafimaadkaaga iyo sidoo kale dhaqaalo oo aad maxaa leedahay dhaqaale ka sameynaysid dabcan alaabtan adiguba aad ka heshay aad isku dhalaalinaysid isku qurxinaysid waa waxa weeyaan waxa dadka bulshadiina inaad sii gaarsiisid oo aad maxaa la dhahaa aad lacag ka samayso marka waxyaabahan aadka ugu faraxsanahay bay kamid tahay marka aan qof customer shay ka iibiyo inta badan dadkeenu way iska dhaliil badan yihiin waliba marka dadka afka Soomaaliya ku hadla waxay qoranayaan waxaad igu sheegaysaba maaha marka waxyaabahan kambaniga ugu mahadnaqayo waxa kamid ah shaygaasi sida aad qofka ugu sheegtay isla sidii uu kugu soo celinaya ama si yani ka khibrad badan buu qoranayo waxyaaba aanad iiguba sheegin baa shaygan ku dhex jira oo quality-ga noocaas aan ka helay marka waan inta badan waan casuunaa dadka
businesska customerka iyaga nagala qayb qaata ama alaabta naga iibsada si ay uga sheekeeyaan waxyaabo iyo waxtarka alaabta marka waa waxyaabahaas oo company-gu iibiya waa tahay masha Allah waa dhaqaale iyo caafimaad isku jira noloshuna qayb weyn ayay ka qaadataa labadaas waxaan rajeynayaa inay dad badan ka faa'iideystaan fursadan isugu jirta dhaqaalaha iyo caafimaadkaba sida programkani ku saabsan yahay taxanaha Fountain of Life waxa ku jira ama ku duugan sheekooyin aad u cajiib ah idin soo bandhigi doonaan teamka Omlas Global kuwaas ku kala sugan dadweynaha juuri waxa jirta sheekooyin aad u xiiso badan ay leedahay bulshada Fountain of Life dad badan oo Soomaaliyeedna ay aad u caawisay faa'iidada xagga caafimaadka ma jiraan xanuuno gaar ah ama waxyaabo gaar ah ama si kale oo caafimaad ay ka caawisay ama ay ku fududeysay bulshada Fountain of Life muddada ay isticmaalaysay waxyaabaha horta hadda dadka yar faansiyo Fountain of Life waa yani goojo yar ama kolba saad u taqaanin waa dhala yar oo like sharoobo oo kale aad u yar marka waa like saliid oo kale waxyaabaha marka cajiibka ay ku tahay waa geed baa laga sameeyay dabiiciya oo just loo yaqaano Norwegian spruce marka geedka laga sameeyay waxyaabaha ay qaniga ku tahay waxa weeyaan saddex wax oo waaweyn oo inay tahay antioxidant marka leenahay waxyaabaha antioxidant-ga waxyaabaha inaga yareynayso ama maxaa la yiraahdaa ay inoo qabanayso waxa kamid ah inuu yani jidhkaagii ama xanuun soo galo sida xanuunada dadka wadna xanuunka oo kale kansarka oo kale waxyaabahaas ay difaac kaaga noqonaysaa waxyaabaha free radicals ku inoo keenan waxyaabahaas ay maxaa la dhahaa ay ka caawinaysaa dadku intooda badan waxyaabo inaga marka la eego ma jirto inta badan dadku waxyaabo isku dheelitiran cuntooyinkooda oo kale lignitigooda kale inuu qofku ilaaliyo marka waxyaabahaas ayay ka caawinaysaa sidoo kale waxay leedahay ay qani ku tahay antimicrobian oo haddii waxyaabo ay qofka noqoto inuu jirkiisii ay soo galayaan oo ah sidii markaan leenahay antimicrobian like bacteriadii viruskii wixii jirka xanuun ku keenayay oo kale oo dhan ay kaa difaacaysaa inay jirkaagii soo galaan marka waxa jiro kaleeto inay anti-inflammatory tahay oo haddii barar oo kale caabuq uu jirkaagii ku jiro ama bayn uu kala dareemayo inay kaa qabanayso waxyaabaha kale markaa dhalada yar waxaa ku jira dhibco ama yani drops saliidaas geedka laga sameeyey ah oo 600 oo drops yani dhibcood ay dhan tahay 600 ee dhibcood waxa ku jira yani wax u dhigantaa shanteeda dhibcood kamid qofka waxa loogu talagalay inta badan dadka miisaankooda loo eegaa laakiintii haddii qofku 5 dhibcood oo kale tusaalaan idin soo qaadaya uu 5 dhibcood oo kale uu qaato subaxii oo kale qofkaas wuxuu u dhigan yahay qof qaatay xadiga 250 koob oo yani laga sameeyay sharaab ama saladka geedka loo yaqaano oo Soomaaliinta badan wax yani khudaarta marka la eego wax badan inagu ma isticmaalo ama ahmiyad ma siino tufaaxa waa la wada yaqaanaa yani waxyaabaha uu qaniga ku yahay sidoo cajiib u yahay 900 oo koob oo tufaaxa haw qofna ma cabbi karo maanta hal koob oo tufaax hadal cabtid alxamdulillah laakiin 2 koob 3 koob 900 oo koob oo tufaaxa inay cabtay ayay u dhigatahay sidoo kale 25 koob oo green tea waa la yani waxyaabaha uu ka kooban yahay sidana like weight ko kale imka dadkeenu isticmaalaan inay ku dhimaan marka yani horta saasi cajiib u tahay waxaad markaa dareemaysaa ina maalintaadii dhamayd waxyaabo aad u baahnayd oo ama fruitisa ama vegetablesa oo ay ahayd jirkaaga inay galaan inay kaaga filaanayso 5 dhibcood ee aad qaadatay waa sababaha ay waxyaabo badan jirkii uga difaacayso maadaama ay wax badan oo ay qani ku tahay ani ahaantayda markaas waxa jira waxyaabo badan oo ay family ahaan naga caawisay waana waxa kaliya markii koobaad aan anigu businesska u soo galay marka anigu waxaan lahaa shakhsiyan waxa loo yaqaano Soomaali tirada samboorka ama like cabud oo kala dareemi jiray
waliba waxyaabaha waqtiyada hadda oo kale duri baa hayo codkaygu uu yara xidhan yahay marka saas oo kale aan ahay aad baan u dhibaatoon jiray oo waxaan dareemi jiray cabud fara badan ama inaan like naqas way qabanayo kale alxamdulillah waan kaga fiicnaaday sidoo kale markaan sheekada bahashan maqlay ama layga sheekeeyay naftayda iyo hooyaday ayaan focuska saaray inaan xoog isticmaalo marka hooyan waxay ahayd intay dhabarka ka jabtay oo maxaa la yiraahdaa ay lahayd barar gacan markaa jiifkii badnaa ee dhabarka qofka markuu jabo qofkii garanaya waxa la yiraahdaa dadka jiifo oo in badan ba qofka jiif loo qoraa jiifkii badnaa hooyo gacan baa markaa xidhantay barar fara badan bay samaysay xanuun fara badan bay samaysay dan waxa dhacday in maadaama ay isticmaashay markii isticmaalaysay muddo sharabadan ay ilaahay kaga kaxeeyay bararkii caabuqii wixii ay lahaydba ay ka fiicnaatay hooyo oo gacanteeda sideeda ku soo noqday bal ee xanuuno kale oo jirkeeda ku jiray ay kaga wanaagsanaatay waxyaabaha aad markaa isweydiinayso waxa ka mid ah maanta qof kastiba wuxuu lacag ku bixiyaa ama waxaan lacag maanta lagu helin waa caafimaadka waxyaabaha marka aadka ula yaabay bay ka mid ahayd markastoo dhakhaatiirta waddanka dhakhtar dabadeed maan geen hooyo laakiin aan tagno waxaa la oran jiray seedi ma xidhnaa seedaha yar xidhan laakiin laf waxba ma qabto boomaatada mariya duugmo u sameeya laakiin hooyo way kasii dari jirtay barar wax kasta samayn jirtay xanuun been fara badan bay lahayd dan yacni qudradaha ilaahay waxay noqotay wax ayadana daruuri u noqotay ama maxaa la dhahdaa aan kaga soo baxnay xaaladaas oo aan kaga baaqsanay inaan dhakhaatiir waaweyn ama meelo kale aan tagno marka inahaasaan kusoo koobi lahaa koley tuule mawduuca aad u dheeraanaya maasha allah runtii waxyaaba aad u waaweyn ayay ka caawisay goojada shakhsiyan iyo faamiliga runtii qayb weyn ayay ka qaadatay caafimaad ahaan ilahana keliya maaha waxyaaba aad u cajiib ah ayay leedahay goojadani ay ka caawisay aniga sidoo kale hadda waxay ka caawisay gaas juuriisa idin soo sheegtay samboorka aad bay iga caawisay oo kale qaja xanuun baan lahaa tan salayd sidoo kale way iga caawisay runtii laga soo koobi karo waxyaabaha ay leedahay korkana waa laga isticmaali karaa afkana waa laga qaadan karaa qof walbana wuu u baahan yahay runtii way difaacaaga dhisaysaa oo waxay ka hortegaysaa dhammaan fayraska iyo bakteeriyooyinka jirkaaga ku iman kara ayay ka hortegaysaa difaac bay mar walba kuu tahay qofkii xanuunsanaya kii aan xanuunsanaynba prevention ayay u tahay juuriya ma jiraan dad kale oo caawisay goojada fountain of life sida customerkaagii aad ka iibisay goojada muddada isticmaaliyeen waxyaabihii saameynta lahaa ay ka sheegteen goojada fountain of life 1 iyo 2 walaahi maariyay horta waa suuqayga ugu weyn sharobadani ama fountain of life aan iibiyo dadkuna wadama ay ka badan ay kala joogaan way iga iibsadaan maxaa leedahay waddanka waliba Soomaalida dadka ugu badan ee iga iibsaday waa Soomaalida waad ogtahay dadka Soomaalida xanuuno badan ay la nool yihiin haday tahay dad la nool rumadiisanka oo kale dad la nool yani maxaa leedahay waxyaabo subaga oo kale dadku yaqaaneen marka customeradu aniga just qofku markaan u sharaxan ku raahdo sida ay saasay tahay waxyaabaha dadka faa'iideysaa way iga qaataan hadhow feedback-yada igu soo noqdaa waxay kala noqdaan different waxyaaba aan story waxa ama sheekooyin waxa ka soo baxa aad u cajiiba marka hadda waxa jirta sheeko aad bay u fara badan yihiin sheekooyinka ama yacni qisooyinka dadku igu soo feedback igu soo celiyaan ama iyagoo qaar kale soo dalbanaya laakiin weekend dhexdiisa waxa jirtay sheeko weyn oo maxaa la yiraahdaa ay iga sheekaysay maamo qaadanaysay imika in muddo ah waxaa ka mid ahayd sheekadaas markaas inay maamadaasi lahayd kansarkan naasaha ku dhaca marka oo la jaray naaskii deedna ay dhakhtar Ethiopia tagtay adanna maxaa la yiraahdaa in badan dawo waxa jirta waxa markaa qofka waxa lagu shubaa daawooyin kiimikaal si loola dagaalamo kansarkaas markuu qofka laga daweynayo marka muddadii markay waqti joogtaba dhakhtarka bay dib ugu noqon jirtay check up bay soo mari jirtay kiniini qaadan jirtay waxa jirta 3 xabo oo kiniina la soo siin jiray oo $100 ah dabadeedna intaas sii qaadan jiray hadhowba dhakhtarka ku noqon jirtay marka waxay tir waxyaabaha aadka cajiibka ah kamid markii xabadii ugu horeysay aan bahashan sheekadeeda maqlay waan iibsaday xabadii ugu horeysay markaan qaatay xitiri anigoo arkaya ay jirkaygu waxay kala dagaalamayso suntii iyo chemicalki lagu shubay waxay tiri jirkaygu aan arkayaan waxaan dareemay inay iga soo saarayso yani inay chemicalki jirkayga ka soo saarayso
xabadii kale ku noqotay haddana way sii waday waxay tiri caafimaadkayga waxa noqday qof fudud wixii jirkayga haddii barar ku jiray haddii yacni xanuun wax aan dareemaya ma jiro waxay tiri meel kasta jirkayga ka mid ah wuxuu noqday nadiif dhakhtarkii bay ku noqotay waqtigii bay gaadhay marka waxay tiri kiniinka halkaas iskaga joojiyay kiniinkii waxaan markaan soo qaatay soo noqday waxaan sheekada noqday sharoobadan waxaan go'aansaday inaan kiniinka iska joojiyo oo 30 xabbo kiniinka aanan qaadan noqodkayga dambe anigoo bahashan sii qaatay aan dhakhtarkii ku noqdo marka dhakhtarkii bay ku noqotay iyadoo 2 xabbo oo sharoobadaas qaadatay waxay tiri wuxuu dhakhtarkii igu sameeyay baaritaan aad u fara badan wuxuu sameeyay bay tiri wuxuu galay kombiyuutarro kala duwan meelo kala yacni dhiigag wax kasta uu iga qaaday wuxuu inta in leeg oo aan dawo kuu siiyo oo jirkaaga xanuun oo ku jirtaa ma jirto aad baad u caafimaad qabtaa waxay tiri waxaan ku yidhi dawadii waa joojiyo kiniinkii ma qaato hadda dee sabab iyo reason aad u qaadataaba ma jirto wiiro jirkaagii wax xanuun ku jira ma jiree iyaad iska qaadan waxaan haddeer aniguna dawo kaaga qoro ma hayo jirkaagina aad buu caafimaad qabaa marka waxay ahayd yacni wax markaad aragto aad u dareemayso waayo inta badan waxyaabahan ama dawooyinkan qofka la qaadanayo isagoo xanuunka baabin haddana side effect bay leeyihiin wax qofkiisi caafimaadna siinay haddana aan jirkiisi wax saameyna aan ku lahayn balo inuu qofkii waxyaaba ay ka sheegaysa hurdadeed oo kaleeto yacni deganaanshiya qofka stresska xataa qofka haddii yacni qofku buuq yar oo kale uu dareemayo walwal waxaasoo dhan way ka saaysa qofku seexanaya hurdo fiican oo ku filan yacni timeka loogu talagalay ayuu qofku seexanaya marka waa yacni waxyaabaha ay faa'iidooyinkeeda ka mid ah dadka siiso marka uu sheekadaas ay igu layaab badnayd oo aad u cajiib ahayd iguna cusbayd in muddo ah oo yacni sanad laga joogo anigu maadaama wadankan ka yara baxay aniga laftarkaygu dan waxyaabaha waan dareemaya hadda inka kiiskan oo kale maadaama igu cusbaa aniga laftarkaygu markaan baxay oo aan wadanka ka baxay waxa jira qofku hawo bedesho oo hawo kala galo inta badan cuntooyinku cunayo kale hawada uu galayo oo dhibaato ama qofkaas inuu duray ku dhaco ugu yaraan cala laqala inuu duray ku dhaco kale inuu cuntooyinka la qabsan way ku xanuunsado oo kale marka anigu markan imka Ethiopia oo kale aan tagay Ethiopia waxyaabaha aan la qabsan way wax jira cimiladeedu iska highland weeyaan teen qofka xataa hadii nabar yar ku dhaco nabarkaas uu ku buunuqaya uu ku bukoonaya marka waxyaabaha aadka cajiibka waxa kamid ah in ay ii noqotay yacni first aid kit yar oo aan iska sito cuntada markaan cuntadii waan la qabsan waay markaan yar xanuunsadan cuntada soo cuno oo aan dareemo inaan xanuunsanayo aan cabo markuu nabar yar igu dhaco aan maxaa leedahay samariyo waxyaabo aad cajiib inay macni dadkii meeshay la tagay ama xanuunadii dareemayaan ama duriga oo kale aanan waxyaabihii aan anigu fitka ahaayeen aad u caafimaad qabay alxamdulillah marka waa waxyaabaha ay faa'iidada ku leedahay oo aadka u cajiibka cajiib wallaahi waa sheeko aad u xiiso badan runtii wax badanna dadka wax u taraysa xanuuno badanna ayay bahashani koobsatay goojadani Fountain of Life sirooyin badan baa ku duugan waa sababta weyn ee barnaamijkan lagu soo bandhigayo ummadda Soomaaliyeed si ay uga faa'iideystaan laga yaabaa qof xanuunada jooriyo sheegtay la xanuunsanaya muddo in uu ka faa'iideysto ilaahayna uu soo dhiibo jooriyo waxaa jirta productyo kale oo aad hayso oo runtiina iyaguna saameyn leh kaliya ma aha Fountain of Life laakiin waxaa jira productyo kale sida shampoo-ga iyo daawada cadayga ma jiraan productyo kale oo runtii saameyn iyaguna leh wax badanna laga faa'iideysan karo dadkii aad ka iibisay ama adiguba haddaad hayso waxyaabo badan ay kuu tartay waxna nooga sheegi kartaa si ay dadku nooga faa'iideystaan والله ماريا وأنا كل شيء قررت على ماشي على هذين اسمنا كشكاية بيل يلا يوم علم بوي قاعدة نستع يعني فيدوين كيلا ها يسدو يعني شيء وحيابها ككوبين لكن وحيابها أنا شخصيا أنا استعماله كاستبرد جوده استعماله وأنا يعني كم أرمي كرين هالسكن أنا كم أرمي كرينين أما أنا ينقول كذا ما تاني دونينين وحكم إذا دواء عادي marka daawooyinka cadayga siin wada soonahay ee isticmaalo inta badan wadankeena taala falorid ba ku jirta sidoo kale to ma laha quality yani qofka oo kale to
xaddi ay kaga controlayaan haddii qofku uu leeyahay tusaalahaan dadka biraha xidho oo kaleeto afkoodii iyo ilkahoodii urtoodii yacni xataa naqaska kasoo baxay wuu isbedelayaa marka dawooyinka cadaygu ma laha anigu before waxaan isticmaali jiray anigoo ilkaha ay bilaabir yihiin waxaan isticmaali jiray maxaa la yidhahdaa daawadayda cadayga then waxaan tegey Ethiopia markaan tegey way iga dhamaatay Ethiopiana inta badan waxay iska adag sida wax u soo galaan waxaan aniga laftirkaygu waan soo socday oo waxaan isla fasax baa kulay aad heli doontaa marka guriga tagtid baad qaada dalban kartaa laakiin dawo kale oo caday oo ku sii naasibta aad qaadatid oo yacni aad maxaa leedahay raadsatid meel kasta waan maray waxaan waayay yacni wax iila dhigma يوسف دواdan waxay leedahay wax ku siinaysaa yani duration tusaalahan hadii uu qofku subaxii kale ku cadeeyo maanta dhan inaan yani ilkahaaga isbedelin inaad u haysanayso inaad like imika cadeeytay sidoo kale qofku hadii ay qofkaas birta xidhan oo kale ilkiisa inta badan waxyaabaha uu dadku ku dhibsadaa waxa kamid ah inuu birtan waxay ku sababaysaa inuu qofkii sidii hore ilkiisa ama naqaskiisa afkiisa ka soo baxaya uu aanu noqonin taasoo kaleeto waxay ku suurta gelinaysaa inaad like aanad dareemin oo just uu qofkii noqdo qof afkiisa markasta clean yahay oo nadiif yahay marka anigoo sidan dareema oo kalsooni dareema oo dawadaydan caday ku cadeeda ay iga dhamaatay marka yacni waxyaabaha oo intay ku noqotay waxay ahayd inaan waayay dawooyinka cadayga kow afka iga gubeen oo maadaama dawadani aanay follower lahayn yacni like waxaan meesha inaad wax ay ku jirto waxyaabaha like ruuxo kale wax yar burburan oo kale leedahay sidaas ilkii caddaana kaaga dhigaya nadiif kaaga dhigaya waa like powder wax budo oo kale ayaa ku jirta then oo silver baa ku jirta micro silver baa ku jirta halkay full already laga saaray micro silver baa lagu daray then ko waxaan waayay dawo caday oo inaasibta afkiiba iga gubeen like waxaan waayay maalintii 3 jeer 4 jeer inaan cadaydo marka horta qof kasto maanta codkaygani soo gaadho oo yani maqlaya ina haduu bir xiran yahay iyo haduu yahay dadkaas yani ay dhibto ameelkiisu dhiigaan cirku xanuuno oo aniga cirku wii xanuuni jiray alxamdulillah waan ka galadnaaday marka hadii yihiin qofku noocaas uu maanta jiro waxa ay ka caawin doontaa insha Allah problemkaas oo maxaa la yiraahdaa inaad hesho af nadiifa ur nadiifa qofka afkiisa ka soo baxdo bir oo kale hadda sidatid aad yani kalsooni dareemaysid marka taasan dadka aan u gudbin lahaa insha Allah inay ka faa'iideystaan fursadaas oo ay qaataan insha Allah daawadan cadayga ee uu soo saaro company-gan Oblas Global ama Microsilver toothpaste la yiraahdaa marka taasan ma faa'iideyn lahaa xayd aad baa maasanta Juuriya sheekooyinka aad ku kala duwan runtiina saameynta leh aad nala wadaagtay productyada runtii ma kala dhacaan haday health noqon lahayd iyo haday skin care noqon lahayd iyo haday personal protection noqon lahaydba waxa jira intaan hadda halka ku soo bandhignay in ka badan oo runtii ka saameyn badan insha Allah programada kale ayaan ku soo qaadan doonaa Ilaahay haduu idmo si ay dadku wax badan uga faa'iidaan maadaama Juuriya ay nolosha wax weyn u tarto labada shay in ka wada hadlayno programkeena ku saabsan yahay caafimaadkii dhaqaalaha maadaama aad fursad heshay fursadaasna ay ku fududeysay inaad 204 wadan aad ka shaqaysato kana ganacsato dadkana si fudud aad wax ugu gudbiso sidoo kalena caafimaadkii aad iyadana aad u fududeyso maadaama aanay ogeyn goojadan faa'iidada dhowrka ay ku duugan oo adigu aad tusaale nool u tahay waxyaabaha gaarka ay ka caawisay ma jiraan waxyaabo aad noo tilmaami lahayd oo ah dhaqaalaha iyo caafimaadka waxyaabaha ugu muhiimsan nolosha weeyaan si la wada socono taasna waynu aaminsanahay marka ma jiraan waxyaabo aad nagula talin lahayd oo ah fursadan caalamiga aad haleeshay siyaabaha looga faa'iideysan karo qof kastana uu kaga faa'iideysan karo isagoo meel walba adduunka ka jooga haday dhaqaale iyo caafimaad ma noqon lahayd insha Allah ta'ala والله مارياي waxaan oran lahaa horta fursadan waa fursad waqtigeeda joogta markay la arko yani inuu nirahno platformada social media kala duwan waxa laga yaabaa inuu qof dadku waqtigooda u badan qof kasta weydiisid maanta balwadiisu waa social media waa balwad laga wada siman yahay waqti fara badan oo ku lumiyo
qof kastoo dhalinyaro qof kastoo maxaa la yiraahdaa maanta ama shaqo haysta ama wax kale haysta horta waxaan kula talin lahaa inay fursadani noqon doonto balwadaadaas wax yani inaad lacag ka samayso oo aad ugu bedelan karto oo aad social media kaga shaqaysan karto waxaan sidoo kale kula talinayaa qof kastoo meel internet ama platform internet uu ku shaqeynayo haysta yani inakoo kale marka laynoo eego miyadeenaas markaad tagto shirkadahan telesom samtel waxyaabahaas bilis waxa dadku isticmaalaan way ka shaqeeyaan internetkana waa lagu isticmaalaa dadkuna maanta 12 jirkeena mobile weyn yani haysta oo dhamaan ku wada isticmaalaya platformada internetka marka wax kale maaha qofku already wuxuu iibsanayaa website-kaas then wuxuu ku soo bandhigaya uu suuqgeyn ku sameynaya alaabtiisan kala duwan marka waxaan oran lahaa waxay maanta fursad kuugu tahay kow inaad hayso marleyba aad isticmaalayso internet laba in aad caafimaad iyo lacag aad wada sameynayso oo caafimaadkaaga marka aad maanta wax quality dawacday quality ku cadayato shampoo quality ku marato maxaa la yiraahdaa wixii hela supplementary-gaagi oo maalintii iyo habeenkii baad u baahan tahay aad isticmaasho family-kaaga isticmaalaan at the second aad suuqgeyn sameynayso oo aad dadkii uga faa'iideynayso oo dad kale oo u baahan aad sii gelayso just anagoo kale hadda waxaan idhaahdaa dadku markay weydiiyaan war aniga inta family-kayga ma dhaafto alaabta markaan dalbo intan Soomaaliya waxyaabahan wadamada kale ka iibiyo in dadka kale gaarsiiyo halka iska dhig iyadu waa waxyaabahan suuqgeynteeda ka samaysto laakiin inta aan intan Canada ka dalbo maadaama company-gan saldhiggiisu weyn uu Canada yahay alaabtan Canada lagu sameeyo inta yaraan dalbo Soomaaliya keeno family-kayga ma dhaafto wallahi dadka qaar iyagoo taagan oo maxaa la yiraahdaa raadinayo doonayaan ku dhaada way dhamaat orderka dambe iska suga sababtuna waxay tahay inuu ma wada gaarsiin karo dadkii Soomaalida ma wada gaarsiin karo fursadana Soomaalida way ku cusub tahay marka qof kasta waxaan leeyahay ka faa'iideyso fursadan naftaada uga faa'iiday ehelkaaga uga faa'iiday dan dadka kale kugu xiga maxaa la kugu hareeraysan uga sii faa'iiday adiguna ka samayso yani wax markuu qofka keeno wax quality leh wax dadkiisa bulshadiisa anfacaya waa wax yani isaga laftarkiisa value gaar iyo dareen gaar istinaysa waxyaaba aniga igu sii kalifay inaan sii horumariyo ama ganacsigayga intuu doono hasii yani aan sii joogteeyo waxa kamid ah inaan feedback bulshadayda ka helo oo igu dhiirigeliyaan oo igu dhaadaan wax fiican baad noo ka doo qofka shampoo ka qaata maanta isagu ku mahad celinaya ka daawo cad qaata isagu ku mahad celinaya waana aniga haagayga hore kaga soo sheegay dadka Soomaalidu waa dadka ugu yani dhaleecaynta badan marka xagga ganacsiga la eego oo wax kasta ay arkaan way dhaleecayaan xataa haddii waxaas quality leeyahay marka waxyaabahan ugu mahad celinayo customer-kaygana ayay ka mid tahay ilaahay ugu xidhay ay baray waxaan oran lahaa fursad waqtigeeda joogta ha laga faa'iideysto qofka maanta codkaasi soo gaaro ama yani maqla company-ga meel ka maqlana inuu fursadda raadiyo baaro internetka ka baaro dadka yani lagala soo xiriiri karo kala soo xiriiro dabadna uu fursadaas ka qayb qaato ayaan dhiirigelinayaa aad baad u mahadsantahay adiga mudan jooriyo waan kaga mahad celinaa mar labaad iyo mar saddexaad baa waqtigaaga qaaliga aad loo hibaysay loogana faa'iideysay information kala duwan aad la siisay aad baan kaga mahad celinaa ugu dambeyn qofka doonaya inuu jooriyo la soo xiriiro halka ka heli karaa Maria waxaan ku yar dari lahaayeen ilaabay qofka doonaya yani platform-kan inuu maanta barto qofka oranaya maanta anigu tiknoolajiyada saas ugu sii fiicni anigu maxaa la yiraahdaa website weligay waxba kuma iibin company-gu wuxuu leeyahay tababarayaal oo haday tahay anaka dadkayga Soomaalida inta Itaalkayga waan ku tababarnaa dadka Soomaalida kale waan sii gaarsiinaa sidoo kale waxa jira kulamo caalamiye oo company-gu qabto sidoo kale waxa jirta tareerina caalamiye oo company-gu qabto marka waa fursad isla socota yani aqoon iyo ganacsi iyo maxaa la yiraahdaa qofkii network kala duwan oo yani intaas wadan jooga oo maanta aniga juweeriyeer sanad 2 sano ka hor waxaan iska ahaa Hargeysa oo laga yaqaanay intan gobolada laakiin maanta hadaan Mareykan tago iyo hadaan Canada tago iyo hadaan Ingiriiska tago iyo halkan tagoba asxaab ay joogta oo aan saaxiibaan ku leeyahay waxaan leeyahay war halkaas aan joogaayo waa teamkii Oblase halay yimaado marka
fursadaasna way ka dhex jirtaa oo yani waa fursad aqooneed oo qofkii wax la barayo oo yani xataa hadduu qofku businessyo kale uu leeyahay uu kusii horumarsan karayo waxaa lagu barayaa sida loo develop garayo businesska sida marketing loo sameeyo waxyaabahaas oo dhan sida social media platforms kala duwan looga faa'iideysto qofku wuxuu xayeysiisan karayo marketing ugu sameynayo waxyaabahaas oo dhan waa lagu barayaa dhammaan videogan waxaa idin soo saari doonaa Instagram-tayda Maria Cabdiraxmaan waan ku soo galo iyo page-kayga oo maxaa la yiraahdaa website linkigayga oo hadii qofku uu wadamo kala duwan uu joogo uu ka linkigaas isla markaa uu linkiga ka order garaysan karo wixii uu u baahan yahay iyo shayga uu doonayo uuna si toos ugu iman doono gurigiisa insha Allah